السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قدرنت إقايها مدن سود وهذا أصحابي waxaan wadnaa qayb ka mid ah gabadhan oo hadli rabnaa gabadhan noo saaran shaashada fahiima cadeeyana hadli rabnaa ilaahay dhibka ku dhacay ha u dhibdaamo ilaaba u dhibdaami kare naga waxaan ahay adoomo iyada la mid ah waad aragtaa bilo aadankan ilaaba kala duway isku mid ma aha iskuna fikrad ma aha iskuna aqlina ma aha sidaas alle u kala duway qaybtan aad arkaysiin waxaan kusoo duubahayaa filteran ku duubahayaa videogan filteran ku duubaa qaybta marka dhamaado kadib qayb kale oo bilaa filterna waxaa ku jiraa inaan ku daro ayaan rabaa marka asxaabta qaaliga ah walaalaha qadaranta iqaayaha madaxa idin leeyahay haddii aad igu cusub tahay subscribe isaar haddii aad nala joogtana waad ku mahadsan tahay daawashadaada quruxda badan asxaabteyda waxaan leeyahay gabadhan wixii ku dhacay way ku dhaceen hadda kadib waa inay ka digtoonaata arrinkan waxaa la yiri gabadh ay raacday mar iyadoo la wareysanayo arkay gabadhaas gabar baa la socotay gabadhii la socotay far wax saare mala kabar gabadhaas waxa la socday far wax saare mala ayadiina hadda gabadhaas diig xumadeedan bala yaabay wuligay waxaas kale ma arkin qof kula socday oo wajigiisa noocaas noqday adigana xayi tahay oo fiican tahay dadka isku mid dadka la socdo xitaa dadka isku mid ma aha dadka aad la soconaysay xitaa wallaahi dadka isku mid ma aha bilo aadamada isku mid aheen dadnimada isku mid aheen qofka aad la soconaysid qaabkiisa iyo adaad ba aragtidba inuu yahay qof isaga dhan laga macnaha la jiidan karo macnaha adaad tahay taa ina saaxiib ka dhigtid maaha qofka kalsoonida leh oo wanaagsan socodkiisa uu fiican yahay horta gabdhow iska jira gabar walba oo socotaha iska raacina gabar kasto ina iska raacto saaxiib la noqoto hakina qofka ugu wanaagsan qofka ugu dagan qofka macnaha maanta israacin xitaa isku dhiman kartiina fiican beer gabadhan ayadana wajigeedu waa la bedelay saasa laga dhigay hal mar hal guri ka soo wada bixin midaan kaleeto ee xafladda isla imaadeen wax ku dhaca wajigeeda malaha way daawaday ka eed dad noocaas iska jira mar Allah marka ay dhibaato kugu dhacdo marka hore soo kuula socdi oo balaayo isaga ka dhigaayo balaayo casar isaga ka dhigaayo mar Allah markay baash kugu haysato wax ku qabsadaan ambo sidii geedka noqda oo ku fiirina wadna xuma wadna heeday bal gabadhu way bala socotay aana u hiiliseeda oo macnaha balka wax la isbedel la sameeyay dagaalka meegeynayaan la waan isticday halala waxa seelay waxa waxaan dhahnaa asxaabta qaybtan kala filter la'aan waaye asxaabta filter la'aan way qaybtaanayta filterku waa iska dhaafay ayaa soo eegso markaysiin clear waaye filter la'aan no original waaye sahan xabteeda qaaliga aniga isku mashquul markano kacamaha xitaa calaan saare calaan leeyahay waawaya gacmii ilaanka iyo waxaan qabaa saacabta qaaliga walaalaha waxaan arkayninba malaha si kastood arag waxa walba adduunkan waxaan la arkaynin ma jiraan qof ay isku haleynaysan jirin gabar yahay qof ay isku haleysa aysan jirin waayo waraabo waxyaabo badan oo waraabo ayaa jira meel bay ku dayac meel baa laga si kasta isku ilaaliso meel baa laga soo galaa si ahaatee waxa ka fiican isku badnaashada ayaa wax walba muhiim ah siib haddana qofku markay horumar iyo nolol fiican uu sameynayo waxba daba iska daba dhigtaba qof naag baa cadow ku noqoto waxba cadow ku noqdo inta ma aad horumar sameynaysid damo cadowgaadu sii badanaya asxaabi marka waxaan idin leeyahay weligaa noloshaada ka adkaaw noloshaada waxa u habboon iyo waxa kale waa inaad ka taxadartaa waayo dunidan hadda sidii hore maaha waa
digital ay wada noqotay isbedel badan ay sameynaysaa noocyo kala duwan ayaa jiro wax badan ayaa jiro oo ogeen gabar yahay waxaan ku leeyahay mar alla markaa sameysanaysid gabar saaxiib aad la soconaysid waa inaad ila dheeraad u noqotaa haddii kalena ahayn guriga hooyada deganaaw cidiin dadkiina ku tiirsanaaw dad walaalaha ag deganaaw qof ehel iyo qaraabo atiin ag deganaada yaa qofka agtaada jooga ha ahaada mid qaraabo atiin haddaysan ahayn waa dhibaato leh kusoo jiidaysaaba dhibaato iyo wax aan loo joogin ee kala kulmaysaaba maba kala kulmaysidaan ku dhahay haddana qofka kaleeto oo kuli hilib ahayn mar allah markaa ka agtiisa joogtid dad waxaa jir wanaaga u dhashay wanaagsan dad waxaa jir laakiin waraabe ee wajiga iyo inta ka horeys bis ka fiican yaa qulubtoodu waa bahalii galaxta ay ku dhex dhimanayaan xumaanta ay qabta kilix qulubtooda bahalii galaxta ay ku dhex dhimanayaan yaa markaas wajigan waxaad ka aragtay waxay iska ka dhigayaan baro aadanka adduunka iska ka dhigayaan marka waxaan idin leeyahay inaad isku dadaashiin isku badnaatiin bahalaha meelaha halka bahalaha ay ku badan yihiin inaad iska ilaalisiin bini'aadamka cadowgaada meesha uu ku badan yahay inaad iska ilaalisid iseen beri meel walba oo aan ku munaasabkaada ahayn inaad ka istaagtid horumarkaada iyo noloshiidan ka shaqeyna markaad dhehaysid waxaa la rabaa in aad waxyaalaha taagnaata iska fiirisid gabadhan hadda dhibaatada qabsatay ilaa dhibaatada ka bixiyo oo aad arkay 2 jeer joogtaa xataa hal mar maaha 2 jeer way dhex joogtaa arrinkan kulley way ka baxaysaa laakiin wixii dhibaato saan ula daba taagnaa yaa mar dhow way ka baxaysaa insha Allah way ka wada baxaysaa cadowgana sidiisaba yaa haddii aad ku samirtid horumarkaada iyo wanaaggaada ba sii badanaya waa loo samraa u samir ilaa qulubta ku dejiyo wanaagga ilaah ku tuso waxaan ku leenahay walaashay hor u sii soco mustaqbalkaada mid ka sii fiican ku rajeynaynaa noloshu sideedaba marna way ku leexdaa marna waa ku iftiintaa sideedaba mushkiladaan ay wadataa ida dhan mushkiladahaas hor socdo waxaan ku leeyahay walaashay qaaliga abaayoy hor u soco insha Allah anagana ku soo ducineynaa waxaan ahay gabdhaha Soomaaliyeed ku garab taagan manihin ku maalin walba ku dhibaateynaya oo ku dhibaaya manihin waxaan ahay ku garab taagan marka si kasto ahaataba ana waxaan ugu baxay arrinkan gabdhaha Soomaaliyeed gabdho waan iskarab qabano wanaaga aan ka shaqeyno gabar kasta oo dhibaataysan garab siino tu kasto liidan kor aan u soo qaadno wanaageena soo u bato qabiil iyo qurankiisna aan iska dhaafno arrinka wuxuu ku fiican yahay in la iskarab qabto xaaladahana sidaas ay ku wada hagaagi doonaan insha Allah waxaan rajeynayaa howlaha kale xasan dhan in Ilaahay noo hagaajiyo qofku xun halkaas ayuu ku harayaa noloshiisana qabiidiis ahaanaysa haddaad xumaatid xumaatid weligaa horumarka in nolosha aragtid ma gaaraysid qofku xun oo waji ma lihid wajigaaba insha Allah wajigaaba